salaanka bacdi waxaan rabaa inaan ka hadlo mowduuc ku saabsan arinta Soomaaliya guud ahaan gaar ahaan Puntland Soomaaliya nasiib wanaag Ilaahay wuxuu siiyay si degdeg ah dawladnimo aan waqti badan ka qaadan helideedii way midowday intii markaas Janiska oo heshay oo ah laba gobol oo Ingiriiska iyo Talyaanigu xukumeen dawladnimadii Ilaahay saa'ina ku siiyay waxay u burburtay si sahlan oo ay abuurmeen qabaa'ilo la dagaalamaya xukuumadii qabaa'illadii la diriiraysa waad ogtihiin uu burburay dalkeenii dawlad la'aan baa ina ku dhacday ummadii Soomaaliyeedna waa firdhatay caalamka oo dhan bay ku firdhatay wadamadii reer galbeedka oo awalba talada wax ku lahaa burburkeena waxay aad u soo dhaweeyeen dadkii Soomaalida ahaa deganaanshay siiyeen in badan oo kamid ah intii markaa fursadaha u heshay intii kale waxay isku cunaysay wadanka gudihiisa dagaalkii eelka markuu gabaabsi noqday waxa bilaabatay qaab loo sameeyo in dawladda loo sameeyo iyadoo la heshiisiin fursadihii hore qabqablayaal iyo dila ku rooyeen nimankii xukunka ku dirirayay bay ahayd intii dambe waxa ku soo baxay dadkii qurba joogta ahaa dadka qurba joogta ahi lama oran karo wadariin ma ahayn hasa ahaatee waxay noqdeen dad maaragtay wadamadii marka uu Janis helo ama wuxuu noqonayaa mid dabada laga wado oo dawladii uu markaa joogay markuu u warramo uu yiraahdo wadanka Soomaaliya rabaa inaan wax ka noqdo ay dhaqaale soo siiso soo dabada ka soo riixdo iyo mid hadda nasiibkiisa ku soo galo oo yiraahdo ka hel waxay galeen xildhibaanadii waxay galeen wasiiradii waxay galeen madaxweynayaal bay noqdeen nin walba wadankii uu u dhashay wadanku joogay oo sharciga uu ka qaato ilmihiisu joogeen wuxuu u noqday safiir buu u noqday wadanka u jooga wadanahooda u ilaaliya 30 sanadood 28 sanadood baa dalkeena dawlad la'aan yahay waa suuroobayda Soomaaliya inay heshiiso waa suuroobayda inay dawlad midaysan samaysato waa suuroobayda inay isfahmaan waxaana sababay waxa weeye dadkii xukunka qabsaday oo fursadaha Janiska haystay oo dawladuhu taageerayeen baa waxay sameeyeen nin walba wuxuu wakiil u yahay dawladahaasina nin walba waxa loo soo diray inuu danaha dalka ilaaliyo Soomaaliya waa meel la isku haysto 28 sano dawlad la'aan ma noqoteen ama dawlad bay yeelan lahayd ama dal la qabsaday noqon lahayd laakiin waa lagu heshiin waayay waxa ku heshiin waayay wadihii waaweynaa oo doonaya qolo walba inay Soomaaliya hantido waayo Soomaaliya waxay leedahay istiraatiijiyad ganacsi oo ah badaha ku xeeran waxay leedahay istiraatiijiyad amni oo ah habka dhulka hadii la isqabto qolo walba ay rabto inay xeeladaysato waxay leedahay resources fara badan oo iyadana ku jira taasa waxay keentay marka muhiimad gaar ah inay u lahaato caalamka awoodda sheegtay iyada marka waxay noqotay Soomaaliya meel lagu hardamayo oo nin walba uu wakiil soo samaysto marka wasiirada inaga inoo joogaay ma aha heshiis ma aha dana kala gaar ah oo aan heshiis ahayn bay wakiil ka yihiin madaxduna waa sidoo kale dhibaatada ina haysato oo dawlad la'aanta abuurtay waa mid daaweeye waxaan marka soo jeedin lahaa oo dadka Soomaaliyeed u soo gudbin lahaa dadka qurba joogtaana waxaan leeyahay waad ku khasbantihiin marka aad Soomaaliya u yeelataan in dalkii aad joogteen oo ilmihiina hayay oo idinka idin hayay aad safiir noqoto waa ku khasbantihiin safaaradaas aad noqonaysaana Soomaaliya dan ugu ma jidho waxaan idin oran lahaa dalkiina si uu hagaago weerarkan aad nagu haysaan joojiya oo dalka gudihiisa aad ku haysaan Soomaalida kalena waxaan oran lahaa dal joogta ahi war inta saasi jirto Soomaaliya dawladnimo arki mayso waa dhibaato in ku taagan hal laga digtoonaado oo hal laga tashado in dadka baasaboorada wato ajnabiga baasabooradiisa wataa oo dhulkoodii degani inaynu xilalkii u dhiibno hal laga daayo
taasi waa ina ku dhibaato Soomaaliyan dawladda heli mayso waayo wasiiradu heshiis ma aha oo tala isku meel ma dhigi karaan madaxdu waa sidoo kale hadii la kuriyo baarlamaanku waa sidoo kale baarlamaanadeedu heshiis ma aha waa waxba u hagaagi lahayn waxa u dhaqaaqi lahayn waa wax maalin walba khilaafku u taagan yahay arintaas aan idin soo gudbinayaa waa arin aad ogtihiin laakiin ogaada ama rumeeya ama rumeynina inta taasi jirto Soomaaliya dawladnimo arki mayso waa idin salaamaya assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh